kulanti wacan wanaagsan caruuray ku soo dhawaada barnaamijkeeni sheeko iyo sheeg waxaan ahay Fartuun Maxamuud Axmed waxaan idin wada sheeko cajiib ah oo aad ka heli doontaan sheekada ciwaankeedu waxa uu yahay ninkii caaqilka ahaa ee weli beenta sheegin waa sheeko cajiib waxaad filayaa inaad dhalada u soo wada dhawaad doontaan sheekadan waa sheeko cajiib ah isla markaana waxa ay ku saabsan tahay ninka boqorka magaalada ahaa ee ninkan uu ku sugnaa aan beenta sheegi jirin iyo boqoradiisa waxaan ku hormaraynaa ninkii aan weligii beenta sheegin ee Caaqil Muuse ahaa Caaqil Muuse waxa uu ahaa nin tuulo degan isla markaana tuuladaas waa tuulo weyn ay ahayd dad badan ayaan halkaas deganaa dadkuna waxay ninkan uga barteen nin run badan isla markaana been dhan aan sheegin dadka dhan way aaminsanaayeen xitaa meelaha ka fogfog tuulada dadka degan ninkan caan ayuu ka ahaa way wada yaqaaneen maalin maalmaha kamida waxa dhacday ninkii boqorkii magaalada boqor oo ku sugnaa Caaqil Muuse inuu boqorkii yiraahdo waxaan u baahanahay ninka runta badan waa inaad ii keentaan boqorkii waxa uu sameeyay inuu dhaho hal ii keen shaqaalihiisa ayuu ku dalbay kadibna shaqaalihii way u keeneen waxa uu ku yiri weligaa been ma aad sheegin miyaa may been ma aan sheegin sababtoo ah waxaan ahay qof beenta iska ilaaliya wuxuu kula dardaarmay boqorkii ninkii Caaqil Muuse ahaa in weligiis uu ka taxadaro beenta isla markaana uu soo sheegin runtana mar walba uu fiiriyo oo mar walba wuxuu arko oo markaa runta ka sheego waxa uu kale sheegay in beentu ay tahay sun carabkana si fudud ay u soo gali karto maalin labaad Muuse waa loo wacay waxa uu wacay boqorkii waxa uu ku yiri Caaqil Muuse waan baxaya waxaan aadayaa ugaarsi ee fariintan waa inaad boqoradeeda gaarsiida waxa uu ku yiri fariintan ku sheegay waxa ay tahay aniga ugaarsian tagaya waana soo noqon doona balse boqoradeedu waa inay diyaarisaa xaflad weyn oo adiguna nagala soo qayb gasho ka hor inta soo boqorku bixin lugtiisa midig ay ahayd inuu farasta ku fuulo balse lugtii bidix ayuu faraskii ku fuulay Muusena wuu arkay boqorka waxa uu sameeynayo waa la socday tan waxay ahayd xujo markaas la xujeysanayay Caaqil Muuse boqorka iyo asxaabtiisu dad waxay iska dhigeen wayna ay jeesteen wayna tageen Muuse waa uu baxay waxa uu tagay boqoradii gurigeedii ayuu ugu tagay waxa ku yiri waxa laga yaabaa inaad bari xaflad weyn diyaariso waxana laga yaabaa inaad diyaarin boqoradii way ka yaabtay Caaqil Muuse waxa uu ku hadlayo waxa ay ku tiri maxaad kala jeedaa hadalkan waxa uu ku yiri Muuse anigu markuu boqorka ii soo dhiibayay fariintan lugtiisa midig dhulka ayay taalay lugta bidixna faraska ayuu ku fuushanaa ila ma ahayn marka inuu baxay boqorkii asxaabtiisa way wada qosleen waxay dhaheen bari waa Caaqil Muuse waan ku qosli doonaa sababtoo ah been ayuu sheegi doonaa ilaa ninkan waa la xujeestay waxay fiirinayeen inuu been sheego balse isagu uu ka foojignaa nin caqli badan uu ahaa runtana mar walba sheega boqorkii gurigiisa ayuu imaaday sidoo soo socday waxa uu ku yiri boqoradiisii ii waran way wada sheekaysteen kadib Muuse waxa uu ku yiri waxa ay ku tiri waa ogahay inuu been sheegi doono oo waliba yiri waxa ay ku tiri aniga Muuse waxa uu sheegay in laga yaabo inaan diyaariyo xaflad iyo inaan diyaarin halkaas waxa ka muuqatay in boqorkii halkaas ku guul dareystay kuna fashilmay ninkii la xujeystay ahaa Caaqil Muuse inuu halkaas ku guuleystay sheekadana waxyaabo badan ayaan ka baran doonaa caruuray adiga naftirkiina xitaa marka isla sheekaysataan bal fiirey sheekadan maxay in la muuqataa wax badan ay ka baran doonaa xitaa qofka bini'aadanka waxa uu arko inuu runta ka sheego uu sabeen sheegin waa mahadsantiin caruuray kuna soo dhawaada sheekadan iyo sheekooyin kale oo cajiib ah